السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرضيال سودوادا دمانتين aad iyo aad baan idin salaamayaa waa macalin xuseen baale oo idin soo diyaariyay casharka maanta casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay story waa sheeko doo ilaahay idmo asla socono I was employed waxaa lii shaqaaleysiiyey a house girl boyso ama guri qofka ka shaqeynaya ayaa la dhahaa a house girl boyso by a woman trader naag ganacsata ah in a nearby town magaalada ugu dhow meel magaalada u dhow she paid me only 300 Somali note she paid me waxay isiisay only kili 300 Somali note 300 oo lacag Soomaali ah a month bishii but laakiin I was happy waan ku faraxsanaa because sababta ah it was waxay ahayd my own money lacagteyda however she gave me waxay ii dhibtay a lot of work to do shaqo badan inaan qabto at 5 o'clock 12 saac in the morning subaxdii to cook san waxa uu kariyo later kadibna I had to wash waa inaan dhaqaa the clothes dharka for the whole family oo qoyska dhan iska lahaa I was always busy mar walba waxaan ku mashquulsanaa scrapping san u tirtiri lahaa the floor dhulka preparing san u hagaajin lahaa lunch qadada sweeping san u xaaqi lahaa the compound agagaarka ama banaanka daarada washing san u dhaqi lahaa and ironing san u feereyn lahaa the clothes dharka preparing supper san cashada u diyaariyo and washing the dishes san u dhaqo alaabta waxa lagu cunayaa lahaa dishes if I were lucky haddaan nasiib lahaa I will finish these duties waxaan dhameyn lahaa shaqadaani at 11 o'clock 5 saac at night habeenkii I suffered waxaan ka xanuunsanaa from fatigue aan dareemayay daal but laakiin I had no choice aniga macnaa dalab uma lahayn amba go'aan kuma lahayn but laakiin to carry on working inaan si shaqeyle mooyaane I was 13 years old then waxaan ahaa 13 sano jir walaal videogan hadduu ku xiiso geliyay fadlan subscribe saar like iyo share tan ha ilooben si mar walba aad u hesho muuqaalada kale waa mahadsantihiin dhamaantiin